السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله waxaynu qaadan doonaa shirkeennii ama course-kii Introduction to Public Health waa noo soo socdo maadaama marka aynu nahay wax loo yaqaano distance learning waqtigeeda iska kooban yahay insha Allah marka jabtarada ugu muhiimsan baynu marba soo qaadan doonaa mid ka mid ah jabtarada ugu muhiimsan aynu halkan kusoo gudbin doono waxaa ka mid ah primary health care waa mid ka mid ah mawduucyada ama topigyada ugu fiican oo aynu ka eegi doono wax loo yaqaano aynu ka eegi doono marka dhinaca generalka ah primary health care-ka waxaynu nidhahnaa wax loo yaqaano daryeelka caafimaadka asaasiga ah wuxuu dabooli karaa inta badan baahiyaha caafimaadka ee qofka noloshiisa oo dhan ay ku jirto sida ka hortagga daweynta iyo waxa loo yaqaano iyo baxnaanada ugu yaraan talabar dadka dunida ku nool adduunka oo marka inta badan ma helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran marka waxaa la yidhahdaa daryeelka caafimaadka asaasiga waxaa laga helaa xarun bixisa daryeelka caafimaad waxaana ugu muhiimsan xarumaha bixiya sida innaga dalkeena markaan eegno MCH-ka ama xanaanooyinka waxaan u naqaana iyo helboosyada qaybahaas waxaana la yidhahdaa qaybta primary health care-ka haddii ay si fiican u shaqeyso dadka dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaanba kobaca way kobci lahayn sababtoo ah qofka haddii uu private sectorska meelaha uu tago cisbitaaladaasi isagoo wixiisa loogaga qaban karayo markaa xanaanooyinka dhaqaale badan iyo lacag badan baa kaga baxayso marka insha Allah bal topicaas aan ka hadli doonaa primary health care-ka waxaa la yidhaahdaa is necessary health care based on waxaa la yidhahdaa daryeel caafimaad ama waxa loo yaqaano oo ah necessary marka muhiim ah ama waxa loo yaqaano lagama maarmaan ah marka waa daryeel caafimaad oo muhiim u ah ama lagama maarmaan u ah ama asaas u ah marka bulshada kaasoo ku salaysan ama lagu saleeyay convenient marka hab ku habboon bulshadaasi marka logically sound ayaa la yidhahdaa marka logically sound marka aan leenahay fikir ahaan marka wax loo yaqaano sax ah ama caqli ahaan sax ah oo ku marka waa inuu noqdaa mid bulshada waxa mid ku habboon fikir ahaanna sax ah and social acceptable bulshadana aqbali karto methods habka lagu gudbinayo marka habka loo gudbinayo ama loo gaarsiinayo bulshada una noqotaa nidaam ama qaab ay bulshada aqbali karto technology marka ahaana waxa loo yaqaan made universal accessible marka xagga technologiyada markaan eegno waa inuu noqdaa mid bulshada oo marka bulshada dunida ku nool oo dhan ay heli karto to individuals marka shakhsiyaadkaasi ama families qoysyada in the community marka bulshada ku dhex nool qoysaska iyo shakhsiyaadka accessible waa mid ay noqdaan inay ay gaari karayaan marka ama heli karayaan through their participation iyagoo si buuxdo oga qayb qaadanayo oga mid noqonayo marka full participation marka at the cost xagga dhaqaalahana the community bulshada iyo country mujtamacna avoid ay awoodi karayaan marka primary health care waxaa la yidhahdaa ama adeega daryeel ee caafimaad ee bulshada marka asaasiga waa inuu noqdo mid bulshada ku qanci karto ay aqbali karto ay bulshada wax loo yaqaano habka loo soo gudbinayo aqbali karto ama waxa loo yaqaano technology ahaan ama waxa loo yaqaano fikir ahaan u noqda mid markaa bulshadu ay markaasi ay gaari karayaan heli karayaan marka shirkaasi waxa lagaga dhawaaqay almaata 1978 shirkaasoo lagu qabtay marka wax loo yaqaano Kazakhstan caasimadda marka wax loo yaqaano Kazakhstan lagu qabtay taasoo lagaga ahmisanaya caafimaadka bulshada sidii sare loogu qaadi lahaa primary health care qaybaha ku kooban yahay ama ku lug leeyahay waxaa ka mid ah ama iskaashiga buuxa uu la leeyahay health promotion-ka qaybta caafimaadka bulshada kor u qaado ayuu waxa weeye collaboration ama iskaashi uu la leeyahay marka waa sectorska qaybaha health promotion-ka ka mid ah illness prevention-ka ka mid ah care of the sick ayaa ka mid ah advocacy dadka marka bulshada u doodo oo dhiirigeliya
iyo community development arrimaha bulshada kuwa sare u qaada markaa qaybta caafimaadka bulshada sare u qaadaysay ka hortagga xanuunada qaybta dabiibaysa markaa qofka bukaan socodka ah qaybihii dadka daryeelayay ama wax loo yaqaano dhiirigelinayay ama u doodayay iyo waxa loo yaqaano arrimaha bulshada kuwa sare u qaada waxaa la yiraahdaa primary health care-ka became wuxuu noqday a core policy markaa nidaam udub dhexaad u ah for the World Health Organization hay'adda caafimaadka adduunka ayaa wuxuu noqday nidaamyadeeda mid ka mid ah ka udub dhexaadka u ah waxaana lagu qabtay markaa shirkaas waxaa loo yaqaana Alma Ata Declaration waxaa lagaga dhawaaqay caasimadda markaa Kazakhstan ee loo yaqaano Alma Ata 1978 barnaamijkan wuxuu ahaa Health for All in caafimaadka bulshada la wada gaarsiiyo by the year 1998 program 1998 waa in barnaamijka caafimaadka uu dhammaan dunida oo dhan si ugu hirgalaa markaa marka loo yaqaano 1978 markaa barnaamijkaasi uu ahaa targetku hadafkoodana 1998 ayuu ahaa in lagu guuleysto hase ahaatee waxaa kasoo qayb galay shirkaasi 134 dal iyo 67 hay'ado caalami ah ama ururo caalami ah ayaa kasoo wada qayb galay marka laga reebo China oo isaga aragti gooniye markaasi ka lahaa the commitment to the global improvement the commitment markaa ballanqaadka to global improvement in health in caafimaadka dunida oo dhan sare loo qaado especially qaas ahaan the most disadvantaged populations dadka waxa loo yaqaano markaa danyarta ah dadka aan markaa iyada wax dhaqaale ahaan aan awoodin bulshada markaas iyada wax loo yaqaano dhaqaaleeda uu hooseeyo ee markaa danyarta ah ayaa markaa targetka laga dhigay was renewed dib loo cusboonaysiiyay 1998 barnaamijka lagu guuleysan waaye mar labaad baa hadana ajenda labaad la diyaarsaday 2000 baa World Health Organization-ka assembly ay shir qabatay kaasoo health for all 21st century marka qarniga 21aad haddana mar labaad lagaga arrinsanaysa caafimaadka bulshada dhammaan loo wada gaarsiin lahaa mid ka mid ah targetkooda wuxuu ahaa sidii loo hirgelin lahaa marka talaalka oo kale waad aragtay si free buu noogu yimaadaa danta laga leeyahay marka waa maxay in xanuunada maalin walba dilaaco maadaama dunida global ay noqotay uu iyagii qofka la isku socdaalayo network isku xiran ay noqotay qofka caafimaadka maanta xanuunka qabo berit wuxuu gaarsiinayaa dalka sababtoo xanuunka dilaacayna dunida dhan baa ku fiday inaguna soo gaaray marka taas waxaa weeye transportationka waxyaalo badan baa inuu ka siman anyway waxaa jira principles of primary health care waxaa loo dejiyey marka mabaadi iyo xeerar ayaa loo dejiyey 1998 declaration for Alma Ata proposal waxay soo gudbiyeen oo qorsheen asset principles marka mabaadi marka dejisan oo primary health care ka marka loogu talagalay qoraalaha la sameeyay xeerarba la sameeyay xeerarkaasi la sameeyay ee qoraal la dejiyay ee laga duulaya waxay ahaayeen number 1 reflect and evolve waxaa la yiri waa inaan dib u eegis ku sameynaa qaybna ka noqonnaa marka reflect inaan dib u eegis ku sameynaa and evolve and qayb ka noqonnaa from the economic condition xaaladda dhaqaale iyo social cultural iyo dhaqanka bulshada iyo political iyo siyaasad ahaanba characteristic markaas waxyaalaha ay ka kooban yihiin bulshada xagga dhaqaale iyo xagga dhaqan iyo xagga siyaasadda country uu leeyahay dalka iyo communitieska iyo mujtamacaaba waa inaan dib u eegnaa kadibna aan qayb ka noqonnaa waayo waxyaalo badan baa jiro wax loo yaqaano bulshada dhaqamee leh dhaqamadaas waxyaalo badan buu diidaa hadda tusaale ahaan mid kamid ah waxaa kamid ah ama FGM ku kale godobta dhaqan ahaan marka FGM-ka in ay halka ay ka taagan dad badan ee oranaya wax loo yaqaano diintii uu ka soo horjeedaa waxyaalo badan marka taasa keenaysa address the main health problems in marka la sheego la ogaado main health problems dhibaatooyinka caafimaad ugu waaweyn in the community bulshada marka haysta bulshada iyada waa maxay dhibaatooyinka caafimaad ugu waaweyn ee ka jira marka providing siina promotive waxyaalo caafimaad bulshada sare lagu qaaday preventive waxyaalo caafimaadka marka xanuunadii lagaga hortagay curative xanuunadii qaabkii marka waxyaalo lagu daweynayay rehabilitative in baxnaano marka loo sameeyo marka waxaan bixin si loo siiyo bulshada adeegyo marka service-ka waa maxay health promotion disease prevention disease curative
and rehabilitative accordingly siday u kala mudnaanta kala leeyihiin markaa tusaale ahaan marka in eegeyno marka waxyaalahaasi innaga hadda ahaan markay soo qaadano dalkeena hay-adaha yimaadaa dhibaatooyinka caafimaad ugu waaweyn ee inaga jira wax inagama qabtaan innagana uma sheegano laakiin xeer ka mid ah kan ayaa marka si u eegna waxaad moodaa inay ka boodaan sababtoo mid walba waxay ka shaqaysaa bustudiiq iyo tallaale iyo waxyaala rabeys laakiin lagama yaabo xanuunada communicabilis marka laga gudbay xanuunada communicabilis baa inaga markaa iyada inagu dhibaato badan oo ah sida diabetigii markaa macaankii hypertensionkii dhiigkarkii adi ama cardiovascular diseaseka xanuunadii ku dhacay markaa xididadii wadnaha marka kuwaasoo kaleeta hadii waxay nooga qaban lahaa way fiicnaan lahayd sababtoo ah strogan hypertension buu ka dhashay failure marka xeer ka mid ah waxaa weeye in la ogaado bulshadaasi xanuunada ugu waaweyn ay la dhiban yihiin si marka looga caawiyo kii markaa wax loo yaqaano mid walba qodobkiisa waa xeer labaad oo hay'adda caafimaad wax loo yaqaano primary health care marka daryeelka caafimaad ee waxaa loo yaqaano ee koowaad saddexaad waxaa weeye wax loo yaqaan involve inaan qayb ka noqono markaa in addition to the health sectors intaa waxaa jira qaybo kale oo caafimaad ka shaqeeya ayaa jiro waxaa loo yaqaan qaybaha kale ee caafimaad ka shaqeeya inuu primary health care ka qayb ka noqdaa iyo weliba health related sectors qaybo caafimaad ka xiriir la leh baa jira and aspects qaybahaas of national health marka wax loo yaqaan heer qaran iyo community markaa iyo bulsho ahaanba heer bulsho iyo heer qaranba markaa taasaan waxaa ka mid ah agriculture qaybihii beeraha animal husbandry waxaa ka mid ah qaybtii xoolaha qaybta waxaa ka mid ah marka cunooyinka warshadihii oo kaleeto waxbarashadii guryeyntii qaybihii bulshada ka shaqeynaya waxyaalahan oo dhanba waxaa weeye inay xiriir hoose ula yeeshaa primary health care maadaama mid walba uu taabanaya markaa helping most primary health care wuxuu yidhi qodobka xeerka afraad inayna caawinno waxa loo yaqaano most kuwe community kuwa ugu mudnaanta koowaad leh ee bulshada iyo individuals iyo shakhsiyaadka marka primary health care wuxuu sameeyaa inuu caawiyo shakhsi ahaan iyo bulsho ahaan labadaba self reliance siduu qofka iskugu tiirsanaan lahaa kalsooni buuxda u lahaan lahaa isagu marka qofku waxaynu dhisaynaa kalsoonidiisa inuu isku filaanshiyo qofka gaari karaya iyo weliba participation inay ka qayb qaataan maadaama bulshadu waxaa weeye waa stakeholders baa lidhaha xeerar ama waxyaalaha lasoo saaraa waa ciddii uu saameynayay marka waxay ka qayb qaadanayaan primary health care-ka planning marka la qorsheynayo organization marka primary health care la abaabulayo operation shaqooyinkiisa ama howlihiisa marka la fulinayo uncontrolling marka la xakameynayo marka ama coordinating primary health care marka in bulshada marka waxaa weeye qaybahaasoo dhanba ay ka mid noqdaan marka making fullest useful of local taas waxay ka dhigaysaa in si buuxda ay uga faa'iidaystaan ku nool marka iyo heer qaranba marka heer deegaan iyo heer qaranba labadaba inay ka faa'iidaystaan iyo other available resources iyo adeegyada kale ee la heli karayaba marka waxaa la yidhaha primary health care wuxuu dhiirigeliyaa in qofka awoodihiisa sare loo qaado in qofka waxyaalaha loo qabanaya meelaha gacanka lagaga qaadanaya iyo shaqooyinkiisa lagu fulinayana inay qayb ay ka noqdaan ee transparency ay u noqoto markaa qofka uu aaminaan markaa qodobka shanaad wuxuu leeyahay primary health care-ka ee xeerarkiisa waxaa ka mid ah be sustained waa in la joogteeyaa adeega waa inuu noqdaa mid mar walba la heli karaya markaa okay adeegaa mid mar walba in la heli karaya inuu noqdo markaa functional marka adeeg ahaan and mutual support iyo qaybaha kale ee marka waxa loo yaqaano labada dhinacba waxaa jira qaybo kaleeto oo in iskaashi buuxo aynu la yeelano markaasi qaybahaasoo ay ka mid yihiin markaa heer referral systemski marka in iskaashi buuxa aan la yeelana qaybihii xanuunka marka qofka wax lagaga qaban kari waaya wuxuu leeyahay criteria oo u degsan wax loo yaqaano marka MCH levelka ama health centerka hadda case pneumonia marka la helo waxaa la yidhahdaa wax loo yaqaano wuxuu leeyahay category xeerkooda ama buuggooda ama nidaamkooda waxa u dejisan qofka calaamadaha ama xeerarkaa yeeshaa in la gudbiyaa oo loo gudbiyaa markaa cisbitaalka weynaa taasoo noqonaya inpatient in la dhigo u baahan leading to improvement taana waxay hogaaminaysaa sare loo qaado comprehensive health care for all
inuu noqdo daryeelka caafimaadka mid dhammaystiran comprehensive dhammaystiran healthy care for all marka adeega caafimaadka and giving la siiyo priority mudnaanta to those most in need dadka ugu baahida badan dadka marka u baahan dadka marka u xaq leh waxa loo yaqaana in wax loo qabto marka qodobka lixaad wuxuu leeyahay relay in la isku halayn karayo adeega caafimaadka in la bixiyaa waa inuu noqdaa mid bulshada ay isku halayn karta marka at local gudaha ahaan ama heer deegaan ahaan iyo referralba marka local ahaan marka leeyahay xanaanada marka health center in la isku halayn karayo iyo referral labs iyo qaybihii kale ee secondary iyo tertiary ahaa marka on health care waa kas adeega marka shaqaalaha marka caafimaad including physician dhakhaatiirtii nurses marka kalkaalayaashii midwiferska marka umulisooyinkii auxiliarieski community health workerski as applicable marka sida lagu dabaqi karayo ama la adeegsan karayo dhammaan qaybaha oo dhan qof kasta oo shaqada qabanaya waa in mid bulshkiisa uu taagan uu noqdo mid isku halayn sidoo kale traditional practitioners haddii jiraan dhakhaatiir marka dhaqameed oo kaleeto iyagana sidoo kale markaas ama dadka waxa loo yaqaano in tababar ahaan ku habboon in la siiyo markaa bulshada dadka u shaqeynaya and technically work as a healthy team aysan marka shaqaalaha caafimaadka ay wada shaqeynayaan waa inay aqoon ahaan marka dad isku xiran ay yihiin to respond si ugu jawaab to the expressed healthy needs of the community marka bulshadaasi adeega caafimaad ay u baahan tahay ay soo sheegteen ay soo bandhigeen waxay baahiyoodaasi dad ka jawaab celin kara waa inay noqdaan marka simple dadka meesha ka shaqeynaya waa inay dad noqdaan waxa loo yaqaano la isku halayn karayo okay waxaa jirta core activities for primary health worker marka waxa loo yaqaano shaqooyin udub dhaxaad u ah oo daryeelka caafimaad ee waxa loo yaqaano ee koowaad waxaa jira shaqooyin muhiim u ah oo uu qabto markaas shaqooyinka waxaa loo yaqaano muhiimka waxaa ka mid ah daryeelka caafimaad ee asaasiga markaan eegno marka bulshada ay helaan waxa ay ka qayb qaadataa sare u kaca dhaqaale iyo tiknoolajiyad labadaba inta badan dadkeena soomaaliyeed markaan eegayna ama ma helaan daryeelka waana isla soo garana marka daryeelka caafimaadka asaasiga ah waxyaalaha ka mid ah shaqooyinkaas ugu waaweyn ay qabtaan waxaa ka mid ah in ay si waxa loo yaqaano si hoose ay ula socdaan dhibaatooyinka bulshada ka jira markaa okay which are normally divided kaasoo markaasi shaqooyinkan muhiimka ah core activitieska nationally and locally marka heer qaran iyo heer degmo ahaanba waxa weeye ay mudnaanta wada siiyaan according to marka loo eego hay'adda caafimaadka adduunka ama waxa loo yaqaano 1978 declaration almaata lagaga dhawaaqay waxyaalaha lasoo gudbiyey waxaa ka mid ah qodobada kow education concern marka waxa weeye in bulshada la siiyaa waxa loo yaqaan aqoontaas oo waxa loo yaqaano mid qusaysa prevailing health problems marka dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira waxa loo yaqaano marka bulshadii markaa ka jira waa inuu noqdaa markaa mid quseeya marka ama u dabaanad qaadi karaya ama waxa loo yaqaan waa maxay ama u dabaanad qaadi karaya markaa okay preventing and controlling them marka waxa weeye aqoonku adigu wacyigelin bay siinayna wacyigelintaas waxa weeye dhibaatada caafimaad halkaa ka jirta ama ku fidaysa ay waxa u baahanahay habkii lagaga hortagi lahaa ama lagu xakameyn lahaa marka sababta waxaa jirto xanuuno communicable sidoo kaleeto ama xanuuno waxa loo yaqaano non communicable kuwa doona ha noqdo marka xanuunada ku dhex marka dhibaatada bulshada ku dhex fidaysa habkii lagaga hortagi lahaa lagu xakameyn lahaa ayay dadka aqoon ka siinayna barayna marka promotion waxay dadka siinayna food supply marka cunno iyo proper nutrition iyo nafaqo ku filan labada adequate supply safe water biyo nadiif ah ku filan bay dadka siinayna iyo basic sanitation iyo waxyaalihii marka fayadhowrkii marka asaasiga u ahaa meelaha qaar oo kaleeto waxaa public library consuliyada dadkii ama adeeg saabuunaan la siiyaa oo kaleeto shaambooyo ayaa wax loo yaqaan waxyaalaha waxaa jirta hygienic sanitation kusee dadka xanaanooyinka inta badan laga siiya maternal and child health care waa in la helaa markaa hooyadii dhallaankii
caafimaadka markaa daryeelka caafimaad ee hooyadii dhallaankii ay ku jiraan wax loo yaqaano family planning markaa kala koryihii uu ka mid yahay markaa immunization markaa talaal la siiyo against the major infections xanuunada ugu badan oo ku faafa marka bulshada dhexdeeda talaalada la siiyo ama disease preventable vaccination xanuunada laga hortagi karo talaalka in ay bulshada waa maxay in la siiyo markaa waxyaalaha laga heli karayo oo shaqooyinka muhiimka laga qabto xanaanada waxaa ka mid ah talaalkii prevention and control kahortagga iyo xakamayntii local endemic disease xanuunada bulshada markaa gudaheeda oo kale ku fida endemic disease markaa leenahay waa xanuunada faafa ama la isu gudbiyo ama dilaaca kuwaasoo marka waa maxay laga heli karayo marka dalka gudihiisa tusaale ahaan koleyra oo kaleeto marka shubanbiyoodka jeeriska bakteeriyada marka waxaa laga helaa marka xilli kasta ayay qarxi kartaa ama dilaaci kartaa markaa appropriate treatment in dawooyinka ku habboona ama saxda la siiyo common disease and injuries marka xanuunada inta badan waxa loo yaqaano ku dhac marka ama laga helo bulshada iyo dhaawacyada labadaba basic laboratory service marka xanuunooyinka kale markaan eegno adeegyo waxaa jira wax loo yaqaano lagu fuliyo oo ah marka wax loo yaqaano shaybaadha markaas shaybaadhadaasi laga heli karaya HIV kale ha ahaado syphilis ha ahaato wax loo yaqaan HIV ha ahaado gonorrhea ha ahaato waxyaalo badan oo basic needs fara badan waxa laga heli karaa shaybaadho asaasiga ah ee laga heli karaa jirta marka xanaanooyinka kale in la siiyo marka bulshada adeegaas oo kale loo qabtaa professional sida essential dawooyinka muhiimka ah ama laga maarmaanka oo yar xanaanooyinka lagu bixiyo ayaa training of health guides training of health marka guides marka in tababar la siiyo dadka marka caafimaadka bulshada ka shaqeynaya marka inaan hagayaal siino oo shaqaale caafimaadka tababar la siiyo iyo wixii marka caawimaadii marka kuwii shaqada qabanay iyo kuwii kalkaalooyinka ahaa ee caawinaya dhammaan waa inaan la siino wax loo yaqaan tababaro iyo hagayaal ay raacaan marka ay tix raacaan marka shaqaale caafimaadka noocyadooda kala duwan waa in la siiyaa marka tababaradaas referral service marka qaybaha adeega aynu gudbin karno waxaa ka mid ah wax loo yaqaano general hospital cisbitaalkii wax loo yaqaano weynaa oo kaleeto tusaale ahaan marka Burco General Hospital ama Hargeysa General Hospital ka kaleeto wax loo yaqaano Hargeysa Group Hospital kale loo gudbiyo qaybaha laga heli karo marka ayada mental health hadday tahay physical handicap dadka hadday jiraan ama dhaawacan soo gaaro curyaaminta kale hadday tahay health and social care of the elderly meelaha lagu daryeelo marka wax loo yaqaan caafimaadka iyo daryeelka bulshada kale dadka waaweyn kaleeto iyo meelaha lagu daryeelo haddii ay jiraan oo kale hada qaybihii u gudbinayna marka referralka kaleeto marka strategic plan ama waxaa jirta wax loo yaqaano ama nidaamyo primary health care kiisna uu leeyahay oo ayaa jirta marka nidaamyadaasi ama xeerarkaasna waxaa ka mid ah reducing excess mortality of poor marginalized people in la yareeyo hoos loo dhigo marka xaddiga dhimashada dadka wax loo yaqaano danyarta ah primary health care-ka inta badan must ensure inuu xaqiijiyo access inay heli karayaan to health services adeega caafimaad for most advantaged populations dadka marka danyarta ah oo focus inay diiradda lagu saaro interventions which directly impact marka daweyn taasoo si toos u saameyn karta on the major cause of mortality waxay xanuunada inta badan keeni karaya wax loo yaqaano sababi kara marka wax loo yaqaano dhimashada ama dhaawac ama wax loo yaqaano xanuunada ama curyaaminta ku keeni karaya bulshada marka xanuunada u keeni karaya qofka wax loo yaqaano inuu qofka u bukoodo la jiifto ama u dhinto ama u curyaamo waa in marka iyada aan xoog aan saarnaa qodobka koowaad wuxuu leeyahay wax loo yaqaano hoos loo dhigo marka dhimashada iyo xanuunada iyo dhaawacyada ku iman kara dadka wax loo yaqaan danyarta ah markaa reducing in la yareeyo the leading risk factors of human health in hoos loo dhigo marka waxyaalaha xanuunada u nugleyn karaya markaa dadka waxyaalaha markaa risk factors oo qofka u nugleyn karaya inuu xanuunka uu qaadaa in ay yareyna markaa true it is preventative inagoo u marayna markaa si toos wax loo yaqaan qaabka looga hortagi lahaa and health promotion caafimaadka bulshadana sare loogu qaadi lahaa markaa tusaale ahaan inay dadka wacyigelin waxa loo yaqaano wixii xanuunada talaal ay ka siino xanuunada kaleeto wax lagaga hortagi kara marka farxalkii oo kala sare u qaado ku niraa biyo caafimaad qabo qofku inuu cuno cunno u cabo cunno nadiif ah iyagoo nadaafadii shakhsiyanida gaarka sare loo qaaday at the same time xanuunada aan faafin oo kaleeto qofkii inaga warana milixda iska yaree sonkorta iska yaree waxa loo yaqaan dufankii oonta xoolaha ka imanaysa iska yaree cabitaanka biyaha sare u qaad calool istaaga iska hagaaji
wax loo yaqaano qofkiina oo ku oranayno cunada baalka laga kaleeto cun qofka maalintii 30 minute ugu yaraan soco waxyaalahaas inagoo markaa kula talinayna oo xilli xanuunka qofka u nugleyn karaya markaa health promotionkii waxaa lihi kale qofka aynu ku dhiirigelina ama wax oo markaa aynu siin karno markaa aynu siinayna anyway must address those known risk factors marka waxyaalaha qofka uu nugul yahay ama khatarta u jiro waa inaan qofka u sheegnaa which major determinant taasoo go'aaminaysa of health outcome of the local population caafimaadka bulshada taasoo waxa loo yaqaan waxyaalaha go'aaminaya ayay ka mid tahay markaa qodobka saddexaad developing sustainability of health system inayn joogtayno marka waxa loo yaqaan nidaamka caafimaadka waa inuu noqdaa mid joogto ah markaa oo sare aan qaadno primary health care component of health system must be developed in a ways qaybaha primary health care uu ka koobay waayo qaybta caafimaadka marka ayna xanaanada health center ka kale ilaa 5 qaybood bay ka kooban tahay marka ayada ilaa 5 qaybood qaybta farmasiga qaybta wax loo yaqaan shaybaarki qaybta antenatal care-ki qaybta wax loo yaqaan outpatient-ki qaybta nutrition-ki marka qaybahaas oo dhan waa inay noqdaa wax loo yaqaan qaar shaqeynaya which haddii ay noqoto even xataa lacag ahaan waa inagu bulshada kale lacag yar waxyaala yar bay bixiyaan inay laakiin waxa ina maal geliso budgetka bixisa hay'adihi laakiin haddii uu hay'ado kale ay baxdo which financially sustainable mid dhaqaale ahaan la joogteyn kara waa inay noqoto and supported by political leaders wasaaradda caafimaadka oo kale uu wasiirka ugu horeeya in marka iyada wax loo yaqaan uu taageero supported by population service bulshada loo shaqeynaya naftarkooda inay qayb weyn gacan libaax leh ay ka geystaan marka inaga wasaaraddeena waxa weeye wasiirka ilaa wasaaradda caafimaadka ugu sarreeya wasiirka ayaa markaa qaabka u shaqeynaysa joogteeya markaa budgetkiina waxaa inaga taageero inaga bixin markaa hay'adihii anyway the basic requirements for sound primary health care waxyaalaha aasaaska ee looga baahan yahay primary marka waxa loo yiraahdaa caafimaadka daryeelka caafimaadka aasaasiga ah ay sida wanaagsan u shaqeynayaan waxyaalaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah 8 A iyo 3 C appropriateness availability adequacy accessibility acceptability affordability accessibility accountability completeness comprehensiveness continuity marka ay haddaba mid sii istaagno appropriateness marka leeyahay waa mid ku habboonaanta sheegana maxay the service adeega has to be waa inuu noqdaa probably selected mid si sax ah waxa loo yaqaan loo doortay loo xushay carried out by uu fulinayo waa in barnaamijka uu fuliyaa by training personnel in proper way qof loo tababaray si sax ah qofkaasi loo tababaray aqoonteeda leh markuu qofka mashruuca uu qabanayo waxa weeye waxaan ku oranayaa way isku habooyin waa shaqadii iyo qofkiisii oo loogu talagalay bulshadana markaa way ku qanci kartaa bulshadana waxa weeye waa mid ay ku qanci kartaa markaa adeega la qabanayo waa in loo xushaa qof aqoonteeda leh simple kan labaad adequacy waa mid ku filan inuu ku filan the service marka adeega proportionate the requirement isku celcelis ahaan marka baahida looga baahan waa inuu la kulmaa tusaale ahaan sufficient volume of care marka adeega caafimaad ay bixinaynaa waa inuu mid noqdaa xaddi ku filan marka daryeelka to meet the need si uu la kulmaa marka baahida and demand iyo dalbashada of the community bulshada meesha degan iyo adeeg xanaanada u shaqeynaysa xanaanada kora breast badan la saara adeega uu go'aya marka dadka halka ku nool iyo wax loo yaqaan adeega bixinayna waa inuu isku waafaqsan yahay weliba qaasan xilliyada baahiyada ay jiraan xilliyada marba la sameeyo fiican la qaadaa kadib waxa la eega halka baahida badan ee kulaska uu ka jira ee adeega wax loo yaqaan loo badiyaa marka waa mid ka mid ah marka sirkeyga la sameeyo ama cross section wasaaradda caafimaadka tusaale ahaan hadda burco kale waxaa ka dilaacay xanuun markuu xanuunkaas uu ka dilaacay budgetka caafimaadka wasaaradda xoog saaraysa halka xanuunka uu ka dilaacay ayaa loo badinaya marka anyway waa in bulshada halka ku filan iyo adeega xanaanada ay bixinaysa ay isku filan marka ay iswaafaqsan isku filan marka qodobka saddexaad wuxuu leeyahay affordability waa in la awoodi karaa the cost haddii uu adeega lacag yahay should be within the means and resource of the individual and community haddii adeega uu lacag uu yahay kale oo kaleeto wax loo yaqaan waa inuu qiimo bulshada wax loo yaqaan waa maxay ay iska bixin kartaa marka shakhsigii ama wax loo yaqaan bulshadiiba waxa awoodi karaan inay goyn karayaan inay
xilliyada qaar oo kaleeta waxay dhici kartaa haddii hay'ad oo kale ay baxda qofka in yar lagu yiraahdo 10 kun oo laan oo kaleeta ama 20 kun iska bixi karo ama adeegyo dheeraad oo kale qofka loo fududeynayo oo kaleeta waxa yar iska yar bixi accessibility waxa loo yaqaan qofku waa inuu gaari karayaa waa inuu qofku waa maxay uu gaari karayaa marka iyada meeshan uu adeega caafimaadka u doonayo meel uu qofku gaari karayo transportation marka waa reachable qofku waa inuu gaari karayaa confident service adeeg ku habboonna oo qofka meesha waa maxay uu ka heli karayaa geographical deegaan ahaan economic dhaqaale ahaan iyo cultural iyo dhaqan ahaanba accessibility waa qofka inuu meesha uu heli karayaa marka uu gaari karayaa meesha deegaan ahaan marka la yiraahdo qofku inuu gaari karayo tagi karayo dhaqaale ahaan haddii wax iska bixin karayo waa caadi ama transportation kale lacagta yar oo gaariga ku soo raacaya oo kaleeto meeshaan dhaqan ahaanna waa in qofkii marka iyada uusan waxyaalo dhaqankiisa ama wixiisa ka hor imanayna aysan ka jirin marka anyway bulshada waa maxay acceptability adeega waa aqbali kartaa acceptability of care depend on variety of factors marka qaybahan kala duwan ee bulshada marka qaybaheedan kala duwan marka xanaanada ay ka kooban tahay waa in qofku waxa loo yaqaan daryeelka caafimaad uu ka heli inuu ka heli karo aqbali karayo marka tusaale ahaan satisfactory communication waa in uu ku qancaa qofka waxa loo yaqaano inuu qofku uu ku qanci karayo marka xiriirka ka dhaxeeya health care provider qofka adeega bixinaya marka qofka adeeg bixiyaha waa qofkii meesha caafimaadka ka shaqeynaya iyo the patient qofka buka ah waa inuu kugu qanci karayaa waa in waxa loo yaqaano waxa loo isfahamkiina xiriirada qaar baa laga yaabaa qofka kaleeto marka waraysi ala yaranayso inaad adoo cirka eegayo kala meelo kale iska iga attentionka iska sheekeynaya maxay tiri waxa tiri qofka marka communication xiriirka waa go'ay marka qofku waa inuu ka dareemaa interesting inaad xiiseynayso inaad ku faraxsanto qofka inuu shaqeyso inaad dhibkiisa dhageysan karto in waxa loo yaqaano qofka uu kugu qanci karayo qofka qof u soo jeedo waa inuu noqdo marka whether the patient trusts this care حتى وإن أوجاتد إن قفك ودنينا وكل هي وحلو يقام دريالك أفضل الناس مكان whether the patient believe إنه قفك بكاك وكرميسين confidentiality information وربحنت وقفك كل شيء جرينا يا أي وكسينا يا وإن كان مقطع مسؤولية قفك سر بقوس وقرصده marka waa qofkii inuu wax loo yaqaan waxyaalo badan oo kugu aqbali kara dhaqanka waanu shaqaale caafimaad ahaan aqbali kara qof sirtiisa kugu aqbali kara waa inaad noqon kartaa adeeg aad u qabanayso oo inuu qofka ku qanci karaya marka inaga qanaacada qodobka acceptability marka way naga maqan yihiin sababta muxuu naga maqan yahay bulshadii waxaan laga dhaadhicin adeega xanaanada yaala inuu yahay kii saxda ahaa ay aad u baahneed xanuunkaagana kugu filnaa daryeelka koowaadna uu ahaa adigoon cisbitaalada meelo waaweyn qaban lacagtiina ay qofka qarash badan oo qaabix bacdo lagu soo bixin laakiin waa maxay amoxicillin ama flagyl ama bacterium marka uu yaalo xanaanada qofkan kuma qanacsana laakiin marka meel kale la dhigo oo farmasi uu yaala qofku waxa weeye lacag badan buu ku bixinaya marka bileysku ba isbedelay goobtan ba isbedeshay dawada waa dawadi waliba xaqiiqada markaan eegno waxaa laga yaabaa inta xanaanada ay ka quality ama tayo fiican marka xaqiiqada aan ka hadalno waxa weeye meelaha qaarna aan qofku waxaan kula taliyaa in qofka waxa loo yaqaano danyarta ah oo kale lagu yiraahdo xanaanada kale waxa ka soo qaado mar walba marka meelaha primary health care adeega asaasiga caafimaadka qofku uu ka heli karaya daryeelka caafimaadka qofku uu ka heli karaya waxa wanaagsan marka wax loo yaqaan loo tilmaamo anyway availability adeega oo noqdo mid waxa xilli kasta oo qofka subax duhur habeen xilli kasta waqti kasta oo qofka uu meesha uu tagaa oo baahida u baahda saddexda shiftaba shift A B C in xanaanooyinkan hadda way shaqeeyaan qaabkaas u shaqeeyaan marka qofka waa maxay xilli kasta oo tagaa daryeelka caafimaad u baahan inuu qofku waa maxay uu heli karayaa availability waa in la helaa medical care daryeelka caafimaad means that waxa weeye care can obtain daryeelku inuu qofka heli karaya whenever people need it qofka xilli kasta u baahda waqti kasta u baahda waa inuu qofka uu heli karaya ay meesha shaqeynaysa front accessibility marka waxa weeye waa in la qiimeyn karaya waxaan bixinaynaa waa in la qiimeyn karaya accessibility means waxa the medical care daryeelka caafimaad can be readily evaluated xilli kasta oo qofka diyaar ah in la qiimeyn karayo in qiimeyn lagu sameyn karayo marka iyada
waxa in bixinaa bulshada sidee ugu qanacsantay waxa in bixinaa teediisa maxay tahay okay accountability waa wax lala xisaabtami karaya isla xisaabtan waa inay jiri kartaa accountability implies accountability inta badan waxay saameyn ay ku leedahay waxa weeye possibility of regular view in suurtagal ay tahay xilli si joogto ah waqti walba review in dib eegis lagu samayn karaya markaan financial records or certified public account marka in la xisaabin karayo kaleeto xanaanooyinka kale waa la xisaabiyaa sababtoo waa maxay dawadii loo keenay buuggoodii baa la eegaa dawada inta noo taale dawada baxday dawada waxaa loo yaqaanaa baxday inta taallaa ma isla eg tahay marka waxyaalaha inta badan ayn eegin oo waa laga tiriyaa qofku wuxuu ka oran karaa waa layga xisaabiyaa waxan haddaad u tagto adoo saaxiibka ku tiraahdo ani waxaa iska kaysaa 20 xabo self-traxone ama imsin de xageen ku qornaa waa laga xisaabinaya waa inuu buug u geliyaa wuxun inuu sameeyaa sababto isla xisaabtan baa jira completeness waa inuu adeegan caafimaadkan bixinaya inuu mid dhamaystiran yahay completeness of care marka waa inuu daryeelka dhamaystirnaa marka dhamaystirkaasi requires wuxuu baahan yahay adequate awareness in marka wax loo yaqaano lagu sameeyo wacyigelin dhamaystiran to all aspects qaybaha markaasi of medical problems dhibaatooyinka caafimaad ee jira dhammaan wacyigelin qaybta waa inay shaqaynaysaa ka hortagii early detection and early diagnosis marka qofka in xanuunkiisa goor hore la ogaan karayo la daweyn karayo follow up lagu samayn karayo baxnaano lagu samayn karayo marka iyada marka in qofkii intuu xanuun ku dhicin laga hortagi karaya marka qaybtii ka hortagga qaybihii shaybaarka qaybta daweynta qaybta dabagalka qaybta baxnaanada qaybahaasoo dhan waa inuu marka iyada waa maxay uu ka koobnaataa marka xanaanada marka ama qaybta primary health care markaasaa dhamaystirkiisa la ogaan karaya okay comprehensiveness marka comprehensiveness-ka markaan sheegayno waxa loo yaqaano isna waxa wuxuu la mid u yahay midna daryeelka wax loo yaqaano waa inuu dhamaystiran wax loo qabanayo midna qaybihii waa inay jiraan marka comprehensiveness waa maxay waa inuu isna uu dhamaystiran yahay means the care providing of all types of health problems marka daryeelka caafimaad ay sameynayna in qaybihiisa kala duwan waxa weeye ay laga wada heli kareen meesha marka waxaa looga eray comprehensive completeness inta badan waxa way isku dhow midna waxa laga hadlaya dadka shaqeynayay midna waxa adeegii lagu bixinay continuity marka daryeelkan inta badan waa noqon mid soconaya marka mid mar walba joogtay continuity of care requires marka daryeelka caafimaadka wuxuu u baahan yahay mid socdo uu noqdaa mid jiro that the management of patient care over time be coordinated among the providers marka adeega caafimaad ama daryeelka ay qofka ay siinayno uu noqdo mid joogto ah maadaama qofku muddo dheer oo kaleeto ay qofka 5 cisho 7 ama qaybta antenatalka hooyada marka uurka yeelay ilaa intii ka umuleysa waa in la socdaa inuu marka xaaladeeda waxaan ku soo gabagabeynaa wax loo yaqaan to summarize primary care is an approach marka daryeelka caafimaadka waxa weeye inta badan waa hab waxaan qaabka u wajihi karno waxa weeye focus inaan diirad saarno on the person not the disease qofka diirada saarayna ma xanuunka waa in dadkii waxa loo yaqaan qaabka uu shaqeynay qanacsanaantiisa huulihiisa waa in xoog saarno marka use resource narrow difference waa in had iyo jeer isticmaali karnaa marka waxa loo yaqaan waxyaalaha aan heli karna haba yaraado haduu doonay address most important problems in the community waa inaan sheegi karna soo bandhigi karna soo gudbin karna dhibaatooyinka caafimaad ee bulshada ka jira by providing naga siinayna preventive contact curative daweyn and rehabilitation marka adeeg marka service marka adeeg baxnaan marka adeegyo ka hortag mid daweyn iyo mid baxnaan inta qofku sameeynay organizing awaawilaa use of resource sida looga faa'iideysan loo isticmaalayo marka adeegyadii ama kheyraadka ay haysanay aiming at promoting taasoo hadafkeeda ama ujeedka u yeersana u qaadna aan joogteena marka caafimaadka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh intaasoo marka casharkeena uu ku egyahay maalinta waxaan ka hadli doonaa marka family healthigi waxaan isku diri doonaa presentationo casharka xiga public healthiga waxaan samayn doonaa maadaama waqtiga imtixaanka uu soo dhow yahay waxay soo geli doonaa marka waxa loo yaqaano marka online session waa inuu qof walba diyaar u ahaadaa oon soo iclaamin doonaa taasaan kaga hadli doonaa family healthigi iyo waxa loo yaqaano qaybaha kale oo muhiimka meelaha qaarna conceptiyaan ka sii doonaa presentation isku qaybin doonaa marka waxa weeye insha Allah saas aad la soconaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu